Wasiirka Amniga Jubbaland Saraakiil Gaas Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhuumaal ayaa ugu baaqay dowladda federaalk Soomaaliya in ay baaritaan ku sameyso dilka taliyay hay'adda nabad sugidda gobolka Gedo Bakaal Koke. Taliyay hay'adda NISA ee gobolka Gedo ayaa dhawaan lagu dilay qarax lagula eegtay isagoo safar ku marayay inta u dhaxaysa degmooyinka Luuq iyo Doolow ee gobolka Gedo. Weerarka ayaa waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab oo ku macnaysay mid loogu argudayay maleeshiya badan oo kooxda ka tirsanaa oo taliyaha iyo ciidankiisa ay dileen sida ay hadalka u dhigtay. Hase yeeshee, wasiirka amniga Jubbaland Master Dhuumaal ayaa sheegay in uu kiiskan yahay mid mugdi badan ku hareeraysan yahay, lana tuhunsan yahay in ay dhinacyo badan ay ku lug leeyihiin. Saraakiil Gaas Dhuumaal wuxuu sheegay in taliyaha in uu jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya siyaasiyiin uu sheegay in aysan ka shaqeynin danaha gobolka Gedo. Runtii arrintu waxay ahayd arrin shirqool ah, muddaba la daba socday ninka. Qaabkii lagu dili lahaa oo loo adeegsanayay gacan khawaarij ama gacan kale oo dad ku dhow ha la adeegsado waa wax cad, waa wax information-keeda la hayay, taasina waqti kasta ha noqotee way soo bixi doontaa, ayuu yiri wasiirka amniga maamulka Jubbaland. Wasiirka wuxuu ugu dambeyn sheegay in uu soo dhaweynayo baarista hay'adda nabad sugidda, isagoo sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa horay ciidanka Itoobiya ugu eedeeyay dilalka Bakaal Koke. Siyaasiyiinta reer Gedo ayaa sheegay in sirdoonka Itoobiya ay qarax gaarigiisa ugu xireen taliyaha Bakaal Koke, iyagoo sheegay in muddo dheer ay Itoobiya qorsheynaysay dilka Bakaal Koke. Karaar Aadan Ruukow oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Gedo ayaa sheegay arrinkan in uu ku ogaadeen baaritaan ay sameeyeen rag 77dii Itoobiya la dagaalami jiray oo dhagartooda yaqaana. Ayaan arrintan u xilsaarnay, waxaana ogaanay in ay iyagu dileen Bakaal Koke, ayuu yiri Karaar. Wuxuu sheegay in ninkan uu muddo dheer gobolkaas ka hortaagnaa Al-Shabaab, balse uu beegsaday cadow uusan iska jirin. Sidoo kalena, ninkan ayaa caddeeyay in taliska sare ee NISA uusan wax lug ah ku lahayn.